kaamirada CCTV-ga waxaa ka muuqda nin dhoola cadeynaya oo muuqalaan wax yar oo cabsi leh soo galay gudaha wiishka wuxuuna eegay qof telefonkiisa ku mashquulsanaa. Fiican looma arki karo ninka kale balse wuxuu ku mashquulsanaa telefonkiisa. Marka uu ninkaani si gaar ah dhoola cadeeyay isagoo leh muuqaal aan caadi ahayn. Sida aad arki karto wuxuu watay dambiil rooti ah, boorso buluug ah iyo barkimooyin badan oo isdul sarsaaran. Dib markii uu xirmay albaabka wiishka ninkan dhoola cadeyntiisa ma uusan joojin. Dibna wuxuu noqday mid degan oo iska aamusay isagoo u muuqday qof fikirkiisa ku mashquulsan. yacni qofka markuu meel fiiriyo oo fikiraya Soomaan sidaas oo kale ayuu u muuqday. Marka dibadda laga eegayo wax waliba waxay u ekaayeen wax caadi ah, mana jirin wax si fudud lagu ogaan karin. Waxa waqtigaas maskaxdiisa ka socday ninkaasi. Laakiin wiishkii ayaa mar kale furmay waxaana soo galay nin kale. Kii hore ayaa markaas ninkii cusbaa ugu dhoola cadeeyay si xoogan. Sababta aan dhoola cadeyntaas ugu tilmaamayo mid aan caadi ahayn ayaa ah in sida dad badan ay u arkeen kadib dhacdadii dilka aysan u ekaanin dhoola cadeyn caadi ah oo qof lagu salaamayo. Khafiif oo ah dhoola cadeyntaas waxay leeyahay mid dadka kale aan raax gelin karin. Cadeyntiisa ayaa waxay u muuqatay kuwa loo arko filmada cabsida leh. Qaabka uu dhoola cadeynayay waxay ahayd mid dadka qaar si weyn oo ka yaabisay. Oo ekeed mid laga soo qaatay filmada cabsida leh. Dadkii meesha joogay ay dhammaantood u muuqdeen kuwa si aan caadi ahayn dhoola cadeynaya. Sidaas ay maraysay xaaladda kadib Indonesia oo dhacdadan ka dhacday waxaa soo baxay war sheegaya in nin uu dilay haweeney. Intii ugu muhiimsaneed ee ay baariyaashu u baahnayeen waxay ahayd CCTV-ga wiishka ayaan hadda soo aragnay. Muuqaalkan ayaa si weyn uga caawiyay baaritaankiisa. Arrintan waxay iga dhigtay inaan isweydiiyo ma dhici karta inaan nolosheena mar un aragno ama agmarno qof wax xun sameeyay anagoo aan haddana waxba ka ogeyn arrintaasi. Ma aqaan haddii arrintan daraasada laga sameeyey laakiin aniga waxay ila tahay inay suurtagal tahay gaar ahaan qof safar badan sameeya. Waxaan la kulmaa dad badan oo kala duwan sidaas darteed waxaa dhici karta in aan mar un qof aan waxba ka ogeyn wixii uu sameeyey la kulmay ama xitaa u dhoola cadeeyay. Waxaa laga yaabaa inaan wax badan ka fikirayo laakiin sidaasi uma maleynayo. Muuqaalka CCTV-ga ninka